nabadeed dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka baraarug oo ah toddobaadla diiradda saari doona kor u qaadista wacyiga bulshada ee halista cudurka HIV/AIDS iyo daryeelsiinta bukaannada la nool xanuunkan. dhegaystayaal barnaamijka baraarug waxaanu toddobaad kasta xilligan oo kale aanu idinka soo baahin doonnaa idaacadda raadiyo Hargeysa. waxaanu barnaamijkan ku lafaguri doonnaa guud ahaanba xaaladaha ka dhasha cudurka AIDS-ka, siyaabaha lagu kala qaado, qaababka aan la isugu gudbin, sida ay waajibka u tahay in daryeel buuxa oo nololeed loo fidiyo bukaannada uu haleelo cudurkani, iyo in laga taxadiro in la faquuqo dadka la nool xanuunkan. HIV waa virus weerara unugyada difaaca ee jidhka, halka AIDS-kuna uu yahay isku tagga kooxa cudurro ah oo la arko marka ay dhibaata soo gaadho difaaca jidhka, kaas oo uu waxyeeleeyey fayraska HIV. waxay tirakobyadii u dambeeyey caddaynayaan in dad ka badan 3,000 oo qof oo ku nool dalka Somaliland uu xanuunkani haleelay. waxa kaloo xoguhu muujinayaan inuu korokac ku yimi heerka fiditaanka ee xanuunkan. haddaba daryeel noocee ayay helaan bukaannada la nool xanuunkan? sidee xaaladooda loola socdaa? arrimaha waxa aanu xog waran kala yeelannay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah agaasimaha fulinta ee komishanka heer qaran ee xakamaynta AIDS-ka. waa kan isagoo ka jawaabaya su'aal nuxurkeedu ku saabsanaa howlqabadka komishanka xakamaynta AIDS-ka. waxaanu yidhi komishanka qaranka ee xakamaynta AIDS-ku wuxuu u xilsaaran yahay xakamaynta iyo ilaalinta iyo daryeelka iyo isku xidhka dhammaanba howlaha la xidhiidha HIV/AIDS-ka. waxaan isku xidhnaa dhammaanba hay'adaha iyo wasaaradaha iyo ururada ka shaqeeya HIV/AIDS-ka iyo hawlisa ka shaqeeya isku xidhkoodu waa annaka. sidoo kale waxaanu qaabilsannahay daryeelka iyo ilaalada dadka xanuunkaasi uu si gaar ugu dhacay. waxaa kaloo qaabilsannahay inaanu helno istaraatiijiyad iyo qorshayaal aanu kaga hortagin xanuunkaasi inaanu fidin, oo ah ta ugu weyn ee uguna mudan kuna xardhan waxa weeyaan fishinkeena iyo aragtideena qaranka ee 2030 uu sheegay Somaliland inay noqoto meel aanu xanuunkaasi ka jirin. marka si taa loo gaadho waa in aanu helno prevention iyo kahortag, waana ta ugu weyn intaasaan qaranka aanu xil saarannahay. maxaad agaasima nooga sheegi kartaa heerka uu Somaliland ka marayo xanuunka HIV/AIDS? horta xanuunku waa xanuunada isqariya, laana bulshadeenu ma ogola in kor loo sheego ama qofkii xanuunka qabay si qof xanuunsan loo dhaqmo. sidaa darteed xogtaanu ka hayno ee sanadlahay waxay ku salaysan tahay inta kolbad qof ah ee la baadho isugu iskii ama isku baadha ama xanuun kale soo laga baadhay la ogaado. sidaa darteed dadka imka Somaliland ku nool ee xanuunkaasi aanu ku ognahay xagga iyaga ahaan waa ilaa 3,500 qof. waatay agaasmeel 3,500 qof. markaad barbardhig ku samaysay labadii sano ee u dambeeyay tirada dadka uu haleelay waa imisa? horta sanadkii u dambeeyay korkac baa ku dhacay. sanadii horena wuu ka sareeyaa haddii sabab loo eegana 3 sababood baan soo dhaafin. mid annaka komishanka alhoodee inaan ka gaabinay wacyigelintu waa suurtagal. labo, duruufta imka jirtay waddankeena ku jirana ilowshiyo iyo waxay keenaysaa in la kala baado oo tusaale ahaan COVID-kii oo kale xanuun kasta waa inuu ilowsiyo oo kan ku jiro. taasina waa mid ka mid ah. waxaa kaloo iyadna ka mid ah waxa weeyaan duruufaha adag ee abaaraha soo noqnoqonaya iyo magaranaysa ayay muranada siyaasadeed hadii goor dhaco ummadii waddankiiba iska wada siyaasi yahay gibigiisuba waxa keentay in dadkii uu ilowsho ku dhaco in xanuunkani jiray in kalaba la iloobo. taas markaa keentay in markaa korkac ku dhaco. haddii xagga farsamaha laga eegana xuduudaha Somaliland oo deynta warka badan oo waddankeena dhaqaalihiisa isku socodka u batay, Ethiopia intaas xuduud baan leenahay, Soomaaliyada kale intaas xuduud baan leenahay, Yemen oo qaxooti badan ka yimaadana xuduud badan baan leenahay, Djibouti xuduud baan leenahay. marka xuduudaha faraha batay iyo soo galootiga faraha badan leena waxay hadii goor sababa in xanuunku uu sii fida karo dadka soo galootiga laftigiisa waxba kaga jiray markii waddankiisa soo degaan dad u nugul ay noqdaan xanuunkeena si fudud ku qaadi karaan. marka horta duruufaha noocaas oo kale ayaa hadii goor keenay sanadkii markaan kor u kaco. laakiin se waxaanu rajaynaynaa anana kor u qaadno wacyigelinta
إلهينا سبحانه وتعالى هو سنقول دقوا كوين مشغولية كفر كوكتشرو يو أوارها إن نقبحنا تبتنا لو ذا كنتدو إن مخا إن أسوتشي سنو حنون كديب نقول قرصومي إهير كيسي ورا كرقة سوكعي waatay mar kasta oo faafitaanka cudurkani uu kor u kaco tallaabooyin noocee ayaad ku mishan ahaan qaataan إن هرت كو وعي قليل ما هو قريصة أساس كهرتجن وعي ونح كلامها قفك بلادن حنون كفيوبي بلورت إنه مغلوق حنون كان يدي بتيسد بيتنا وكدور صنعان كروا قدر وحقايسنا لا صعدة قفك حنون كقف لفتجيس تلاقى دارد عيلنا فانسيو أنا حنون كاني وحياله كفته ودتك كلك وكائل عليه ولا يقناس يالو كفته وحقلون سمعنا وحوي اسكو حد بانو سمعنا تدالده يان اسكو حدنا وحدي هذا iyo wasaaradeen dadaalkii la mideeyo korna loo qado ayaan sameynaa waxa kale oo sameynaa waxa weyn tababaro aan u fidinayno hawlwadeenada hawsha galiya inaan tababar inaan u fidino ayaan sameynaa marka sanadkan insha Allah taala kulli diiwaan waan ku hadli doonaa wacyigelinta inta hore aad baan ugu xoojin doonaa tababaradana aad baan inta hore ugu xoojin doonaa isku xirka wadaagayaasha ka shaqeeya awoodooda inaan mideynana xoog baan uga shaqeynaa marka kuwa waxaan sameynaa haddii aanu aad uga shaqeyno waxaan hoos u dhacba ku iman doonaa wax kalena maaha qofkii xanuunka fooyibana wacyigiisa kor buu ku doonaa qofkii xanuunka qabeen daryeel iyo dawo heli doonaa isaguna halkiisa ayuu ku doorsanaan doonaa baan isleenahay waatay agaasimo waxaa jirta xuduudaha Soomaaliland sida aad tilmaantay waa kuwa furan dad badan oo xanuunkan la nool ayaa ka soo gudbi kara dadka goobaha lagu baaraa ma waxa weeyaan cisbitaalada guud ee magaalooyinka waaweyn mise in lagu baaro ayaa haboon goobta xuduudeed ee uu dalka ka soo galay qofkaasi horta hadii sax laga waramaysa saxdi waa taa dambe oo qofkeena soo galay la baaro laakiin se de mechanism baa ka horeeya ama wixii noo fududeynay ama siyaasad ha noqoto ama sharci ay qaybta u hiigsano oon ka shaqeyno annaka iyo waaxdiga socdaalka aan ka wada shaqeyno dabeetana aan isla qaadana markaa qofka soo galeeyo inoo soo galiya xaq ma u leenahay caalamiyan iyo Soomaaliland hamba inaan qofkii baari karno horta waxa jirta xuquuq qofku leeyahay haddaan ogeyn xununkan inaad waxa laga baaro de khasab ku baari meen daamin tuhun baad qofka ku samaysay laakiin si kale ka duwan oo voluntary ma u samayn karnaa ma yana qofka dad wuxuu tigilay isaga inoo baahanay taada horta isaga eegno adiyada dawaatana baara maanta hadda xajka tageyso dad buugeer caafimaadka waa khasab daado ilaahay u tagay ma garanaysa cibaadadiisa marka annaka iyo waaxda socdaalka hawshan ka wada hadlan doonina laakiin waqtiga soo socda waan ku khasbanahay inaanu sameeyno waxa weyn immigrationka dadka in soo galaya soo galootiga inaynu status kooda horta aynu isku ogaano dabeetana de qofkan san xanuun buu qabaa de meel kale lagu xanaanayo ama inagu aynu xanaanayno oo inuu ogaano de meel fadhiisano dawada aynu siino ama isku celinabe hawsha waa inaanu mechanism laakiin hore ma naasamiin jirin waatay tirada maanta dadka Soomaaliland ee xanuunkani uu haleelay ee la nool waa imisa maxaad si ku mishan ahaan u qabataa horta waniga sheegay waa 3,500 ma badna waxa dhac kale oo dad badan oo qof nool halkan taagan oo kulamada xanuunkan qaba inaanu jirin been ka jeclayn oo siyaasadeena waa sida inaanu jirin qof qaba waxaan u qabanaynaa anagu qofka hadduu xanuunka qabo waa laba arrimood qofka horta waa in helo dawo ilaahay maanta ilaahay noo soo saaray baa jirta horta inuu dawada qofkaasi qaato inaan ku dhiirigelino oo la siiyo oo dawada joogtay qofka hadduu de taa sameeyo ajasha weyn u simanahay laakiin daranyadii iyo tiifti xanuunka qofkaas horta uu kaaraya dadkan intooda baahanna anagu daryeel baanu siinaa haba koobnaado waliba in kana bilow fiican ku jira si fiican baan ugu bilownay daryeelkaas waa daryeel dawo waxaan jeedaa waa daryeel raashin iyo ka warhayna waxa kale qorshaha noogu jira in aan u sameeyno xeer iyo sharci ku ilaalin dadkaas inay shaqaysan karaan dadka ay ka mid noqon karaan waxa weyn qofkii ku faaqooqa shaqadooda iyo magaranaysa ayay xirfada ay leeyihiin in sharci qabanayaan imka asaaskiisa ku jiraan weega dambe ayaa ma dhameystirnaa insha Allah taan doona barnaamijka inaan establishment gudaha loo gudbiyo marka in xuquuqdooda horta raadina waxaan u qabanayno koow inaan daryeel caafimaad siinana waxaan u qabanayno daryeelkii nolosha inaan siinana waxaan u qabanayno sidoo kalena waxa weyn dadkaasi waan isku xidhnaa iyaga oo nolosha ayay wadaagaan oo iyaga isku xidhan oo qof markuu isku xidhan yihiin si qofkan yeelo way isku sheegaan oo waxa la dhahdo waxa weeyaan de waa filkii magaranaysa ayay wax isbariyay khibradda kala qaadanayay marka filkaana waan isku xidhnaayo
dee iyaga xataa isku sheegay sida dawada loo isticmaalayo hadduu qofkii wax ku dhaco haddii cidi ku sameyska gabadho say u mulayso meelahay tegayso cidda soo dhaweynaysa waxaasoo dhan way isku sheegaan marka adeegan siina had ahaan intaa xanuunka la nooli waa kuwa wixii kana deesanaa waa qaban kartaan insha allahu tacaala waan qabanayna adeegyada marka la siiyo dadka xanuunka la nool gaar ahaan dhinaca dawooyinka iyo raashinka isbitaalka guud ayaa bixiya Soomaa raashinka annaga bixina dawada isbitaalka guud bixiya way dawadu waa arrin clinical ah waa arrin dhakhtarnimo u baahan oo qofkii miisaankiisa iyo daadiisa iyo dawada ku bixin kara dhakhtar manihin marka waxa qaabsan wasaaradda caafimaadka waxaana uga mas'uula isbitaalada hargeysa haday tahay haday boorama tahay haday burco tahay haday tahay berbera annaguna waxaanu siinaa wixii kala daryeela imka taarashinka oo kale anaka imka bixinayna bishii dhaweey waan soo February insha Allah intaana ma karabaan la gaarin raashin kala nasiid doona insha Allah dabeetana saasaan u wadaynaa miisaaniyadna way nagu jirtaa haba koobnaato laakiin waa arrin wanaagsan madaxweynaha sanadkan noogu daray dabeetana markaa lix bilood hore dambana intii baahan gaari karnaa inaanu markaa daryeelka aanu siino anaga nagu jirtaa waatay agaasimo guud waxaa jira dadkeenu waxay u baahan yihiin in la koriyo wacyigooda si looga gaashaanto waxyeello jir ahaaneed iyo mid maskax ahaaneed oo loo geysto bukaanada la nool xanuunka HIV/AIDS muxuu yahay doorka wacyigelineed ee komishanka xakamaynta heer qaran ee HIV/AIDS oo arintaa ka leeyahay horta wacyigelintu waa shaqadeeda koowaad cid kastoo ka shaqeysa wacyigelinta HIV annaka ayaa isku xiran hawsha ka wada shaqeynayna wadawada wasaaradda warfaafinta heshiis baan wada galnay qaran oo ahaa in wacyigelinta HIV-ga aan ka wada shaqeyno kaalintooda ka soo bixino TV-ga haday tahay iyo radio haday tahay haday journal ka tahayba barnaamijyada diyaarinay fariimaha aanu diyaarinay si toddobaadla looga sii deynaya si dadka wacyiga uga gaadho media loo dhex maro iyagoo hadhow u siifay YouTube-da sii dhigi doono oo Facebook-da sii dhigi doono deynta maanta isticmaalo dhan dhammaanteed waa loo isticmaalaya waxaan inta garab socdaa wacyigelinta tooska ah oo ah iskuuladii jaamacadihii dadkii xanuunka loo nool la isku yeedho magaranaysaa imka waxaan islaynaa xataa waxa weeyaan meelaha kale bulshada isku timaado ama ciidamada ha noqoto ardayda ha noqoto meel kasta bulshada isku timaado in wacyigelintiisa toos looga bilaabo waxa kaloo iyaduna wacyigelinta ka mid ah halkan waxaanu ka samaynay hotline system oo ah telefon qofka soo garaayo bilaash xog la xidha xanuunka qofkaas halkaas ka helaya shaqada diyaarada jira warbixin bay ka siinayaan haday dawo ka gooday hadduu si dhibaataysan yahay inta badan waxa la soo xidha gabdhaha u mulaya ee xanuunka la nool oo kale way la soo xidhaan waxaanu yeelnaa isbitaalka ma tagnaa dabeetana facility badan waanu samaynaa waxa kale oo nala soo xidhay dadku qof markuu cusub yahay maanta ka deeso waxaan caafimaad isku ogaa مثلا باك يا حنون يا عسبتها تقول هذا حنون خاصنا وكوجرة دبيتنا قف الدورة ومركز قلبه ومسكح هذا ده كعيسى دبيتنا دكتنتي كونسلينج يا هولي ودنبا كان لقى راسه حرية مركا وعيقولين تو حقوقهم مركا ميكانيزم كستوى إلى هاي وعيكلينتو أما هب كستوى الله مرة وأنا إلا علماء وأنا وضع شقنا وسارد ده مكان نسايا يعني وسارد دين توقفته علماء وضع خندم وشقنا كونا قارنين مكانوا قارنين وحكرنا وضع شقنا وسارد ده dhalinyada iyo ciyaaraha garoomada ma la isugu yimaado intaasoo boqol qof ay daawanayaan barnaamijyada waa laga sii daayaa maxaa wacyigelinta waxaa kaloo noo qorshaysan in wasaaradda waxbarashada manhajka lagu daro qaybo ka mid ah xanuunkan iyo aqoontiisa in lagu daro halkaas ku jirta wasaaradda arrimaha bulshada iyo arrimaha bulshada qaabsan tahay waa wixii dumar iyo cid baahan la xidha iyagana heshiis baan kan hoode way iyaguna way ku jiraan wasaaradda cadaaladda inay ku jirto qaybta shuruucda iyo xuquuqaha dadka ilaalintoodii inaan ka wada shaqeyno marka waxa soo dhan marka la isku wada doono qof marka kaalinta uu leeyahay marka ayuu qaadanaya isku xirkeeduna waa naka weeyaan waatay agaasimo guud su'aasha u dambaysan ku weydiinaya waxay tahay maxaad u malaynaysaa ama se filashadiinu maxay tahay inuu barnaamijkani ka bedeli doono wacyiga bulshadeen horta runtii waxa ku xun tahay deyntan dadaalna ilaahay noo qasturo waan naqaanayo bini aadamku intuu dadaalin buu horta وألا يسأل الإنسان إلا ما سعى وأنا سعيه سوف يرى أنت إلهي بينه شيء سورة النجم مركا دي أنا وحسين دادال بدن موجية مركا سو دادال كوركو سامين يفتان خانوك نهاس بودا عكس كده أنا مركا سو أن حقا يخقع بينه وهم ودن كينو بدي تطيق الشقين يو وعيقين تهواسو دعدنا خانوك نكوربوكا اسم الله مركا إنفرس بسكوي ولبا نعو كلا سودا مركا حسين أنو دادال بدية
wala arki doonaa soo markan hoos u dhacay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay kaasi waxa uu dhageystayaal agaasimaha fulinta ee komishanka heer qaran ee xakamaynta HIV/AIDS Axmed Cabdi Ismaaciil oo xog warankan siinay barnaamij dhageystayaal haddii aad rabto inaad falcelin su'aal ama xog inta dhaafisan aad hesho waxa aad la xiriiri kartaa nambarka gaaban ee 328 oo si lacag la'aan ah aad ugala xiriiri karto dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalka barnaamijka baraarug toddobaadkan intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa waxaa soo saaridda barnaamijkan iska kaashaday komishanka heer qaran ee xakamaynta AIDS-ka iyo idaacadda raadiyo Hargeysa dib intaynu hawada ugu kulmi doono waa Yuusuf Maxamed oo idin leh amaana Allah iyo ismaqal dambo xiiso leh